beri baa waxaa jiri jiray laba arday oo Soomaali ah, labadooda waxay si fiican u fahmeen Englishka, labadooda waxay lahaayeen fursad isku mid ah. Ardayga koowaad wuu hakaday, wuxuu yidhi haddii aan hadlo dadka qaar way igu qosli doonaan. Markaas ayuu istaagay, wuu sugaa, maalmo ayaa dhaafay, fursad ayaa dhaaftay. Ardaygii labaad wuu hadlay, wuxuu go'aansaday qosolka inuu iska dhetiro. Wuxuu isdhahay waad inaad jiirtaa, jiir, dabeecantii iska dhaaf, hadalka sii wado. haddii qof qoslo wax iska dhacaya, haddii khalad dhaco waa cashar. bisha dambe qofna ma xasuusan doonto, 20 sano kadibna cidna ma xasuusan doonto. wuu ku socday arrinta, wuu bartay, guul buu ka gaaray. marka casharka meesha aan ka baranayno waxa weeye inaad xasuusnaato lahjadaada waa qurux, khaladkana waa cashar. dadka qoslaya maanta berito way iloobi doonaan. luqadda ama nolosha ma dalbanaysa inaad dhammaystiranta ama perfect aad tahay. waxay abaal marisaa inaad howsha ku dhaqaaqdo, isticmaalka iyo inaad geesinimo yar tusiso. waxaa idiin rajaynayaa guul iyo barwaaqo.